ciyaartoyda Soomaaliya ayaa guul ka gaaray dhigooda dalka Burundi kadib kulan ciyaareed dhex maray labadaasi koox waxa uu ka dhacay dalka Uganda. Maxamed Cali Maxamed ayaa dhameystiray warkan. xulka qaranka Soomaaliya ayaa galabta gaaray guushii ugu horeysay ee tartanka kubadda cagta ee Sakafa Senior Challenge Cup ee ka socda dalka Uganda iyagoo kaalinta saddexaad ka galay kala sareynta gruubka waxaana hal eber ay ku garaaceen xulka kubadda cagta Burundi oo ay la ciyaareen. xulka qaranka Soomaaliya ayaa kulankan soo galay iyagoo u baahan guul kadib markii ay guul daro kala kulmeen kulankii kan ka horeeyay xulka kubadda cagta ee Uganda koobka Sakafa Senior Challenge Cup ee 2019. daqiiqadii 40aad ayuu xulka qaranka ee Soomaaliya hoggaanka u dhiibay ciyaarta kadib markii uu xidiga qadka dhexe ee Umar Maxamed gool qurux badan u dhaliyay xulka Soomaaliya. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Yiri oo la hadashay idaacadda kulmiye Muqdisho ayaa guul taariikhi ku tilmaamtay guushii Soomaaliya galabta ay ka gaareen dhigooda dalka Burundi waxaana ay sheegtay Soomaaliya ay ku tilaabsatay isbedel dhanka kubadda cagta ah. Soomaaliya waxay sameynaysaa horumar isboorti ana wax ilaahay loogu mahadiyo in ay helaan dhalinteena horumarkaas isboorti waqti burbur badan oo sanado badan dalkeenu soo maray marka ka soo muuqashada meelo badan aan ka soo muuqano horta waa wax ilaahay loogu xamdiyo ciyaarta maanta Burundi iyo Soomaaliya tartankaas maalmahan socday Sakafa sida ay Soomaaliya horena waxaan la soo ciyaarnay walaalaheen reer Djibouti Uganda iyo maanta waxaana u dhiman hadii Allah ogolaado waxaan rajaynayaa iyo meelihii aan ka soo muuqan jirnay Soomaaliya lagu yaqiinay inaan ka soo muuqano waana u hambalyeynaya xulka qaranka Soomaaliyeed iyo macallimiintooda iyo xiriirkooda iyo dhammaan bahweynta isboortiga oo ku wada faraxsan waa hiwaayada saddex kulan oo ay Soomaaliya la ciyaartay dalalka Djibouti, Uganda iyo Burundi ayay soo hoysay 4 dhibcood. Haddaba heerka guruubyada tartankan inay Soomaaliya ka soo baxdo maxaa ka xiga? Imise dhibcood ayay u baahan tahay? Waa kana falanqeeya arrimaha ciyaaraha Cabdiraxmaan Maxamed Kismaayo. Markii la guruubka natiijahan waxa uu natiijo wanaagsan wadanka Uganda oo tartankan martigelinaya sanadka 2019. Burundi laba kulan laga adkaaday natiijadaas u wanaagsan ma laha tartankan boorsooyinkooda ka xarin doonaan. Soomaaliya iyo Djibouti bin hal kulan laga adkaaday min hal kulan ay adkaadeen min 4 dhibic leeyihiin. Soomaaliya waxay ku xiran tahay kulanka labaad inay ka adkaato Eritrea si uu xaqiijisto guruubkan waxa lagu baahan kaliya in laba koox ka soo baxaan. Marka rajada Soomaaliya marka ma aad bay u liidataa ama waa mid fiican. Rajada Soomaaliya tartankan markii la eego guushii galabta wax badan ka saaciday waxay ku xisaabtami doonaan kulanka soo socda inay ugu yaraan barbardhac helaan. wali Djibouti ayagana isku farqi doolasho dhibaca markii la eego isku yihiin. Djibouti waxay la ciyaari doontaa wadanka Burundi, Soomaaliya Eritrea la ciyaari doontaa. Uganda had kaliya banaanka taalo tartankan. marka Soomaaliya ugu yaraan waxa uu weyn qanay karto waxa banaanka timaado inay guul hesho. maaha markii ugu horeysay ee xulka kubadda cagta qaranka Soomaaliya uu ka qayb galo tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa Senior Challenge Cup. haddaba kulamadii hore ee Soomaaliya Djibouti ee la gashay barbardhac iyo midkii Soomaaliya la garaacay ee Uganda iyo kii galabta marka loo eego maxaa iska bedel kubadda cagta Soomaaliya iyo heerka shaxda ee tababaruhu galabta adeegsaday. su'aashaasi waxaan weydiiyay wariyaha ciyaaraha idaacadda kulmiye Maxamed Shuuriyo Nuur. maxaa keenay isbedelka kulankan Soomaaliya Burundi markaynu qiimeeyno sidaad la socotid xul qaran marka la diyaarinayo waxay u baahan tahay in waqti ay ciyaartoydu isla sii qabsadaan xulku la sii xareeyo inta muusan marin xulka qaranka Soomaaliya macallin iyo saddex ciyaartoy ayaa ka tagay Muqdisho waxay gaareen Kampala ciyaartoy dalal kala duwan ka yimi ayaa tagay magaalada Kampala waqti ma jirin tartanku uu bilaabmay ciyaarihi ayaa hore laga galay marka taasi waxay keentay in loo baahnaado in macallinka ciyaartoyda uu ku tijaabiyo garoonka waxa laga yaabaa falsafad inuu adeegsaday 4-3-3 ama 4-2-3 hal ah kulamadii kala duwanaa ciyaartoyduna sidaas oo kale qaarna uu keedka ka soo saaray kulamada qaarna uu keed gelinaya marka in sidaas uu macallinka isbedelo u sameeyo saddexda ciyaarood waxa keentay inuusan waqti ku filan u helin in ciyaartoyda la isku wada helo tababar la sii wada siiyo hal system ama hal qaab loo dejiyo marka shaxli ugu fiicnad galabta ayuu garoonka ku galay waana tan keentay inuu Burundi gool wax kaga badiyo. Uganda ayaa gruubkan ku hogaaminaysa 9 dhibcood halka Eritrea ay soo gashay kaalinta labaad kadib markii 3 eber ay ku garaacday xulka Djibouti iyadoo leh 6 dhibcood halka Soomaaliya ay ku jirto kaalinta saddexaad iyadoo leh 4 dhibcood waxaana tartankan gabi ahaanba isaga haray xulka kubadda cagta ee Burundi.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray dalka Qatar ayaa waxaa aad loogu soo dhaweeyay magaalada Dooxa ee dalkaasi. ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka arrimaha dastuurka iyo mas'uuliyiin kale ayaa Dooxa uga qayb galay madasha Dooxa oo ay ka qayb galayaan madax ka socota qaar ka mid ah dowladaha caalamka iyo hay'adaha caalami ah. sanadkanna waxaa looga hadlayaa ajandayaal ay ka mid yihiin amniga, tiknoolajiyadda, dhaqanka iyo ganacsiga. waxa uuna soconayaa 14 Diseembar ilaa iyo 15 Diseembar 2019. ra-iisul wasaaraha oo sanadihii 2018 iyo 2017 sidan oo kale uga qayb galay madasha Dooxa ayaa inta uu joogo Dooxa waxa uu kulamo la qaadanayaa madaxda Qatar iyo qaar ka mid ah madaxda kale ee ka qayb galaysa madasha Dooxa. maamulka Jubbaland ayaa xilalkii waxa uu ka qaaday qaar ka mid ah gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Gado, kuwa kalena waa uu magacaabay. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Kismaayo nooga soo diray. kusimaha madaxweynaha Jubbaland ahna madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere ayaa maanta waxa uu xilalkii ka qaaday gudoomiyaal degmooyinka gobolka Gado ka tirsan. sidoo kale waxa uu magacaabay xilalkii uu ka qaaday gudoomiyaashaasi iyo qaar kale oo bedeli doona xilalkoodii. waxaana ka mid ahaa gudoomiyaasha xilalka laga qaaday gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gado Maxamed Cabdullaahi Gardhuub oo horey u sheegay inaysan aqoonsanayn maamulka Jubbaland oo uu sheegay inay hoos tagaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. sidoo kale gudoomiyaasha xilalka laga qaaday waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Baardheere iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado. xilka qaadista noocan oo kale oo horey uu sameeyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa ka dhashay khilaaf xoogan taasi oo ka dhalatay kadib markii uu xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Baardheere ee gobolka Gado, taas oo markaa xiisad ka dhex abuurtay dadka degmada Baardheere. tanna ayaa ah mid abuuraysa xiisad kale oo hor leh oo u dhaxaysa maamulka Jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka Gado oo muddooyinkii dambe xiriirkoodu aanu wanaagsanayn. gudoomiyaasha Luuq, Baardheere, Doolow, Beled Xaawe ayaa dhammaantood waxay haatan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, halkaas oo ay shir kula leeyihiin wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. maamulka Jubbaland ayaa horey dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu eedeeyay in ay faragelin ku hayso gobolka Gado oo ah gobol sida dastuurka Jubbaland ku xusan hoos yimaada maamulka Jubbaland, waana tan haatan ugu dambeyntii keentay in qaar ka mid ah gudoomiyaal degma xilalka laga qaado iyadoo aan la garanayn tallaabada xigta ay qaadi doonaan gudoomiyaasha xilalka laga qaaday. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic, KNN, Kismaayo. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay qayb ka mid ah badda la aasi doono si loo ballaariyo baaxadda garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo mar ayaa sheegay mar uu la hadlayay TV-ga dowladda in bishan aynu ku guda jirno qayb ahaan la aasi doono badda Soomaaliya ee kaabiga ku haya garoonka diyaaradaha si loo ballaariyo baaxadda garoonka Aadan Cadde. garoonka diyaaradaha ayuu ku sheegay wasiirka in haatan uu aad u yar yahay baaxadiisa maadaama diyaarado dhowr ah oo caalami ah ay duulimaadyo ka sameeyaan xilligan, sidaa darteedna ay keentay in loo dhaqaaqo bishan gudaheeda dhismaha garoonka qaybta xigta badda. intaa wuxuu ku daray hadalkiisa in dhismahan ay fulin doonto shirkadda Favori ee maamusha garoonka Aadan Cadde kadib heshiisyo dowladda ay la gashay. in airportka kobcintiisii aan spacekiisu wuu yaraaday runta markii loo hadlo wuu ku yaryahay airportkan airport nabadii oo soo noqotay dhaqaalihii oo kobcay diyaaradihii oo sii batay marka airportkan waxa la rabay inuu la sii weynaado marka ay sii kordhaan intaas oo dhan rakaabku markuu sii kordho. waxaa jira hadda heshiis aan la galnay shirkadda hadda maamusha airportka taas oo ballaarin doonta airportka. marka ballaarintaasi waxay ku ballaarinaysaa kaliya dhulka aan haysanay iyo qayb kale oo aan doonayna in dhinaca badda aan ka duugno oo bishan December dhexdeeda aan rajaynayna inay bilaabato. qalabkii oo dhan lagu dhisi lahaa meeshaasi waa la soo diyaariyay, kontraadna waa la saxiixay, marka shaqadii hadda ayay bilaabanaysaa. waxaan rajaynaynaa in taas ay caqabado badan naga qaadi doonto.
dhanka kale maxamed cabdulaahi salaad omar wasiirka duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne farmaajo uu goor hore mamnuucay inaanan la dhisin karin hareeraha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde isla markaana uu ka soo saaray arrintaasi xeer madaxweyne. dhismayaasha eerboorka agagaarkiisa xayndaabka xalane madaxweynaha ayaa ka soo saaray amar inaanan waxba laga dhisi karin. waxaa laga soo saaray inaan dhulkaasi la bixin karin. waxaa laga soo saaray in dhismayaasha socda aynan sii socon karin, kuwa socdana la joojiyo. waa sharci madaxweyne. marka ilaa iyo hadda sharcigaasi waan ku dhaqannaa. meelo emergency oo dabdamis cusub eerboorka loo dhisayo waad arkaysaa inuu dhismahaas socdo, laakiin meelahaas meelo ka bannaanka ah ayaa waxaan aragnaa iyaga oo dhismooyin iyo wax ay ka socdaan, laakiin badanaa annaga bannaanka ay naga yihiin. dowladda soomaaliya ayaa joojisay dhismayaal ka socday hareeraha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde, islamarkaana waxaa jiray hay-ado ajaanib ah oo halkaasi degnaa oo la gararay. arrintaasi ayaa ka dambeysay sida la sheegay kadib baaxadda garoonka ku filnaan waayey diyaaradaha soo degaya iyo kuwa ka duulaya intaba. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa magaalada Gaarisa waxa uu ka furay saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada cirka Kenya ay yeeshaan abid. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Kenya inooga soo diray. madaxweyne Uhuru Kenyatta oo safar ku tagay magaalada Gaarisa ee xarunta ismaamulka Gaarisa ayaa waxaa halkaasi uu ka furay mashruucyo kala duwan oo dawladdiisa ay hirgelinayso. waxaana ka mid ah mashruucyadaasi saldhigga ugu weyn ciidamada cirka Kenya oo halkaasi uu ka hirgeliyay isagoo uu weheliyay gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale iyo waliba mashruuc kale oo koronto awood leh lagu gaarsiiyay ismaamulka Gaarisa, taasi oo ka dhigan in dawladda Kenya ay geysay ismaamulka Gaarisa mashruucii koronto ee ugu awoodda badnaa geeska Afrika. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaa isha si gaar ah loogu hayay xariga uu ka jaray saldhigga cusub ee ay yeelanayaan ciidamada cirka Kenya. saldhiggan ayaa waxa uu yahay midka ugu weyn ee ciidamada cirka Kenya ay ku leeyihiin meel ka baxsan magaalada Nairobi, iyadoona laga ilaalin doono ammaanka guud ee dalka. Kenya waxaa dagaal culus ay kula jirtaa al-shabaab, sidaa daraadeedna waxaa dawladda Kenya ay u aragtay in istiraatiijiyad gaar ah ay u leedahay meesha laga furay saldhiggan oo 15 kiiloomitir u jirta magaalada Gaarisa in laga ilaaliyo guud ahaanba ammaanka dalka. sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in saldhiggan qayb weyn uu ka qaadan doono la dagaalanka tooska ah ee dawladda Kenya ay kula jirto al-shabaab, iyadoona sidoo kale ay u fududaan doonto ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM in si fudud ay isaga kala gooshaan dalkooda iyo dalka Soomaaliya. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. xaflad lagu daahfuraya kursooyin cusub oo ay soo kordhisay jaamacadda Jasiira ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiraya. munaasabad lagu daahfurayay koorsooyin ay u soo kordhisay jaamacadda Jasiira ardayda baratay caafimaadka oo ka qalin jebisay jaamacadaha dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay jaamacadaha dalka, dhaqaatiir ka socotay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Jasiira. Dr. Cabdisamed Xasan oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Jasiira oo ka hadlay munaasabada ayaa waxa uu ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay ardayda Soomaaliyeed koorsooyinka ay jaamacadda ku soo kordhiyeen. fursadihii kale inaan raadino si uga faa'iideystaan. marka waxaan isku dayn inaan keenno koorsooyin online ah oo ardayga u sahlaya soo halkan joogo inuu academic noqdo, isku daya xataa inuu ku dhiirado meesha uu geli lahaa mustaqbalka oo takhasuskiisa xataa soo ka fiirsanaya oo xiise ay u noqonaysa xataa inuu ku dhiirado inuu hor u socdo imtixaanada meelaha centraalka u aado. ujeedada ugu badan oo hadda aan koorsooyinkan aan u qabanayno waa intaa. waxaan rajayn doonaa mustaqbalka hadduu candidate-ku u bato kolay dib aan u sharaxi doonaa inaan isku dayno sida Dr. Luul ay sheegtay, sida indhaha u keennay inaan santaradana keenno. koorsooyinkan marka maxay ka kooban yihiin? koorsooyinka waxay ka kooban yihiin 4 major oo ugu weyn xagga ku saabsan ardada dhaqaatiirta oo yaa geli kara. waxaa geli kara ninka xataa acute-ka hadda jaamacadda ka baxay MBBS ta haysta. shuruud kale kuma xidhno waa MBBS. ninkaan experience uu leeyahay waxaas ma aha. qofka markuu qalin jibiyo shahaadadu soo qaato, shahaadadaasna la aqoonsanaya markii hore ka gelaya. indhaha maahane inta kale waxaa registration lagu samayn karaa Google. timeka la gelayo, locationka kulli way ku qoranta. waqtiga la gelayo waxaa laga yaabaa CB sanadkan 3 mar la galo, part 1ka part 2 waxaa laga yaabaa in 2 mar la galo.
gudoomiyaha jaamacadda Jazeera Professor Ibrahim Salaad Fidow oo munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu horeen u mahadceliyay dadka ka soo qayb galay munaasabada isagoona sheegay in muhiimadda ugu weyn ay u soo kordhiyeen koorsooyinkan ay tahay in ardayda Soomaaliyeed ay aqoontooda kor u qaadaan. anaga barnaamijkan marka aan soo qaadaynay waxaan ula jeednay waxa aad u farabatay in quality-ga waxbarashada jaamacadaha iyo wax laga sheego waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay ardayda jaamacadaheena ka baxeen inay kaalin aad iyo aad u weyn ay ka muujiyeen tartamadii ay ka qayb galeen meel kastay tageen ama ha noqoto imtixaano gudaha ka dhacay ama ha noqoto imtixaano kale oo dibadda tageen runtii waxaan rabnaa inaan aad iyo aad u kordhino kalsoonida ardaydeena hadafka ugu weyn oo aan maaragtay barnaamijkan u soo qaadnay waxay tahay sida hadda uu ka sheekeynaya Cabbaas marka ay tagaan meelaha kale aad uga dhex muuqdaan wixii ka dambeeyay waxay noqotay marka dariiq furan ayay noqotay runtii waxaan rabnaa anaga midda ugu weyn oo aan rabno waxay tahay ardaydeena ka baxday gudaha quality-gooda inuusan liidanin inay arkaan marka ay imtixaano caalami ay fariistaan. idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaad nagala socotaan dhageystayaal warka habeenna wali waad dhageysanaysaan. generaalka falaagada ah ee ka dagaalama wadanka Liibiya Khalifa Haftar ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal uu ku sheegay in uu yahay kii ugu dambeeyay ee uu kula wareegayo magaalada Tripoli ee xarunta wadanka Liibiya. Tripoli waxaa hadda gacanta ku haya dowladda dunida ay aqoonsan tahay hay'adda Itaalka yar inkastoo ay haysato ciidamo ilaa iyo xad ay ku dagaalanto. waxaase la xasuustaa in hadda ka hor generaalkani uu weerar xoogan ku qaaday magaalo madaxda Liibiya inkastoo uusan dagaalka wax guul ah uusan ka gaarin. wax dulqaad ah uma hayno gabi ahaanba maamulka Tripoli jooga waxaana doonaynaa in aan qof walba oo Liibiyaan ah uu xur ahaado muddo ayaana naawilaynay xaalka laakiin hadda albaabadaasi waa ay soo xirmeen ayuu yiri Generaal Khalifa Haftar. waxaa muuqata in Liibiya ay mar kale daaqadaha colaadda ay u furmeen kuwaasi oo aan la garanayn goorta ay soo xirmi doonaan. waxaase jirta in labada dhinac ay Liibiya isku haya intuba ay helayaan taageero inteeda la eg. ugu dambeyntiina dhageystayaal guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada dalka Mareykanka ayaa meel mariyay 2 kiis oo xilka looga qaadi karo madaxweyne Trump. toddobaadka soo aadan ayaa la filayaa in xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ay codgeliyaan mooshinka dimuqraadiyiinta oo haysta aqlabiyadda aqalka hoose ayaana la filayaa in ay u codeeyaan mooshinka xilka looga qaadayo madaxweyne Trump. Donald Trump ayaa lagu eedeynayaa ku tagrifal awoodeed iyo in danaha qaranka uu adeegsaday mid shakhsiyadeed. Trump ayaa noqonaya madaxweynihii afraad oo Mareykan ah oo laga gudbiyo mooshin xilka qaadis ah.